الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا عن محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد. أحبتي في الله، إلهي سبحانه وتعالى waxaan ka baryaynaa siduu halka inoogu wada kulmiyey inuu ilaahay subxaanahu watacaala inoogu wada kulmiyo yowma alqiyaamah jannat alfirdows laclaa ikhwaana عناصر المتقابلين وهو القادر على ذلك اللهم آمين. أحبتي في الله، إلهي سبحانه وتعالى hadduu raalli ka noqdo maanta waxaan jeclaysay inaan ka wada faa'iidaysano xadiidku Anas bin Malik oo Anas uu kasoo warinayay rasuulka sallallahu alayhi wasallam uuna uu leeyahay بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم maalin maalmaha ka mid a annagoo ag fadhin rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa inoo soo galay dakhala calayna rajulan laa nacrifuh, nin baa inoo soo galay ninkaas oo aanan garanaynin. markaas buu wuxuu inagu yidhi ayna cabdilmutalib. ninka markuu meesha uu soo galay cidna kama yaqaano, su-aashiisi ugu horeyd waxaa ahayd ayna cabdilmutalib, wuxuuna ula jeedaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam aaway ibnu cabdilmutalib wuu yidhi wiilkii cabdilmutalib mee. rasuulka sala allahu calayhi wasalam meeshuu dhex fadhiyey asxaabadii baa u jawaabtay waxa ay ku tiri waa kaa ninka cad ee uu nuurayay iftiimay wey kaas weeye. ninkii meeshii uu ka dhaqaaqay rasuulka dhinaciisa wuu sii abaaray. rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu ku yidhi yaa Muxamed, maanta su-aalaan ku weydiinayaa, su-aalahaan ku weydiinayno waa su-aalahaan kugu adkeyn doono, ma ahan su-aala sahal ah, yacni anigu su-aasha kugu adkeyn doono. markaas wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam gees buu fadhiyey, wuxuu bedeshay fadhi mutaki buu ahaa, wuxuu ku tiirsanaa fadhigii wuu iska bedelay, fadhigiisii buu bedeshay oo wuu fadhiistay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam ninkii ayaa bilaabay su-aalihiisi ayuu bilaabay. wuxuu ku yidhi yaa Maxamed, man rafaca asamaa, samadayaa kor yeelay, samadayaa taagay, samadayaa rafacay ayuu ku yidhi. rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa u jawaabay, wuxuuna ku yidhi ilaahay subxaanahu watacaala ayaa rafacay. ninkii su-aashii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku celiyay wuxuu ku yidhi yaa Muxamed, man basata alard, dhulka yaa fidiyey ya Muxamed, rasuulka allow dhulka yaa fidiyey. ilaahay rasuulkiisa ayaa u jawaabay, wuxuu ku yidhi ilaahay subxaanahu watacaala ayaa fidiyey. su-aashii ayuu sii waday, wuxuu ku yidhi man nasaba aljibaal, yaa Muxamed, buuraha ayaa dhul ku taagay mise dhuulaha ku suray. rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu ku yidhi ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku suray. ninkii baa su-aasha wuxuu ku wadaa rasuulka, markaas wuxuu ku yidhi qaala as'alak biladii, waxaan ku weydiinayaa su-aasha aan ku weydiinayo biladii waxaana kugu dhaarinaya su-aashaan qaala as'alak biladii rafaca asamaa wabasata alard wanasaba aljibaal allahu arsalaka ilayna. ilaahay baan kugu dhaariyey, ilaahay dartiis baan kuu weydiinayaa, ilaahaasoo samada kor yeelay, dhulka fidiyey, buurahana dhul ku suray, ilaahays noo kusoo diray. ma ilaahaas baa rasuul ahaan inoo kaa soo diray. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wejigiisii wuu guduutay. markaas wuxuu ku yidhi markaas wuu ku yidhi ey wallah, allaahuma nacam, haa ilaahay baa isoo diray buu ku yidhi. su-aashii buu sii waday, wuxuu ku yidhi as'alak biladii rafac wabasat wanasab, waxaan kugu dhaarinaya ilaahygii kor yeelay, ilaahygii fidiyey, ilaahaygii buuraha dhul ku suray waan kugu dhaariyey. ilaahay maa ku amray in aad amarto 5 salaadood, 5taas salaadood la tukanayay habeen iyo maalin. rasuulka sala allahu calayhi wasalam baa wuxuu ku yidhi wallah nacam, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa isoo amray. markaas wuxuu ku yidhi su-aasha soo sii wada allahu amarak an ta'murana asiyaam, ma ilaahay baa ku amray inaad farto siyaamka. nacam buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. su-aashaas u sii wada wuxuu ku yidhi allahu amarak an ta'murana azakaa, ma ilaahay baa kusoo amray oo kusoo faray inaad nafarto zakada. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi allahuma nacam, haa. markaasuu su-aashay sii waday, wuxuu ku yidhi allahu amarak an ta'murana xaji beyt illahi alxaraam. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haa. ninkiibaa markuu su-aashii uu ka dhameeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi markaasbu wuxuu yidhi allah wuxuu yidhi wallahi waxaan ku dhaaranaya yidhi aladii rafaca asamaa وبسط الأرض ونصب الجبال أرسلك إلينا رسولا
ilaahigii buuraha kor ilaahigii samada taagay ilaahay samadii rafacay dhulkana firaashay ee dhulkana fidiyey buurahana dhul ku suray baan ku dhaaranayaa wuu yidhi ilaahaasoo adigan rasuul inoo kaa soo diray wuxuu yidhi la uxaafidana cala salawaah wala asumana ramadaan wala asumana ramadaan wala ucطiyana الزakaah wala xuja الbeyt wala xuja الbeyt wala aziidu calى dalika. markaas wuxuu ku yidhi ilaahaygii samada kor yeelay ilaahay samada rafacay dhulkana fidiyey buurahana dhulku taagay baan ku dhaartay buu yidhi adigana rasuulka inoo soo diray waana soomayaa sakadana waan bixinayaa salaadana waan tukanayaa xajka ilaahay subxaanahu watacaalana waan aadayaa intaas waxba kama ziyaadinayo. markuu ninkii rasuulka kasii tegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi hadduu intuu yidhi mise hadalka uu yidhi uu ka run sheego wallahi jannada ayuu galayaa. axibbatii fillah, waan aragnay xadiidka waan wada dhegaysanay. haddaadan haysanin lacag aad ku xajiso ilaahay subxaanahu watacaala ah xajka waajib muusan kaaga dhigan. haddaadan awoodin maal aadan haysanin ilaahay zakada waajib muusan kaaga dhigan. ay waajib maahan ilaa mar walba inaad bixiso maahan ilaa markaad haysato bogi. qofka hadduu soonkii usan awoodin macduur baa laga dhigay waqti kaleet uu soo qallayn karaa markuu caafimaad qabo ama wuxuu bixin karaa wuxuu qof masaakiina ku quudanayo siduu ilaahay inoogu fududeeyo. laakiin salaada cudurkeedu maxay noqotay? haddaad xanuunsan tahay, haddaad jiran tahay, salaadii ilaahay subxaanahu watacaala wuu naga rabaa. salaadii waan ka tegnay, qiimo ma lahan. waxaan uga tegaynaa waxay noqotay salaadeenii shaqadeenii baa ka qiimo badan, ubadkeenii baa ka qiimo badan, danaheennii baa ka qiimo badan. axibbatii fillah, salaada ilaahay subxaanahu watacaala aan ku dadaalno. salaada ilaahay subxaanahu watacaala ah qofka mu'minka ah oo muslimka ah markuu dhinto waxa ugu horeeya la weydiinaya waxay tahay salaadiisa. salaadada hadday ay toosto wax walba ay kuu toosayaan. haddii ay salaadaada ay hoogto adna halaag baa kuu dambeynayo way kuu dhamaatay. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa aniga iyo idinkaba inuu ilaahay subxaanahu watacaala naga dhigo salaada kuwii had iyo jeer ku xirnaada, salaada ka dhigta imaam ka dhigta, salaada u noqoto iftiin u noqota. leanna qofka markuu salaada ku xirnaado nuur buu helayaa. ilaahay rabbi raxmaanu nuurkeeda hay naga qaadin. ilaahay rabbi raxmaanu naga dhig kuwii had iyo jeer salaadaada tukada. ilaahay rabbi raxmaanu awaamirtaada raaca. ilaahay rabbi raxmaanu naga dhig. baarakum allahu fiikum وجزاكم الله خيرا. وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.